dhanka kale xogayaha xisbiga mucaaradka wada gobolka Togdheer iyo madaxa abaabulka iyo wacyigelinta ayaa iyaguna ka hadlay xubnahan maalintii shalay iska casilay xisbiga wacid marka ay arrinkaasaan doonayaan ka hadlo oo arrinkaas oo arrin aad u qaldan sharci ahaan xisbi ahaan waayo maadaama xisbi qaran leeyahay in magac qof aan title-kii xisbiga aan ahayn inuu ku hadlaa ay qaldan tahay talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi karo oo qofkii laga qaadayo hadii uu waxaan ahayn haduu ku hadlo waa arrin weyn oo aad u qaldan meesha soo istaagay oo isla ku hadlay inuu yiri waxaan xisbiga ka tirsanahay oo magac ku hadlay Mukhtaar baa la yiraahdaa lahaayo garab afayeenka xisbiga ku hadlay marka waxaan leeyahay ka waantoomina talaabo sharciga waafaqsan ayaa la idinka qaadaya qofkuna isaga ikhtiyaar kale taana de ka waantay oo dad tageyso si sharaf leh hadda doonaysa dhereerka iska duwaada si sharaf laba ilaa adaa mabda'aaga ku yibi marka adoo TV tamaadimana imika TV iyo aad meelaha laga arkay abaabulka iyo wacyigelinta gobolka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka